dagaalanka argagixisada ilaa taasay markii waagu beriyey ayay goobihii cadowga ku sugnaa ku waaberisteen iyagoo ka weeraray cirka iyo dhulkaba hadda qaybtooda ducayna miina arki jirin waa naga yaabsaday yani faatixada aan u marno inuu qur-aanka caawa faatixadaan qabato oo dadka tartiib uga tago bismillaah salaamullaahi calaykum miiraale gacantaa lagu dhigay ciidamada Puntland waxay bilaabeen sidii ciidamadii kuwii Soomaaliya oo kale yaab baan idin hayaa meel inta la qabto ciidamadu ay dib uga soo baxaan waxa lagu yaqaanaa dawladda Soomaaliya kuwani marka dib uga soo baxayaan laakiin meeshii ay qabteen ciidamo kuma reebayaan waa dhaafayaan maxaa kalifi kara waa waxyaabaha yaab kale aan arkay iyo camaara iyo in ay soo galaan ciidamadii khawaarijta oo farxadkooda halka soo galo waa wax la yaab leh goobo muhiim ah baa wali haray dawladda Puntland dagaalka maalmahan xoogaa way ka gaabisay sidaa isleeyahay mar walba oo dagaal la galo cid allaale iyo cid dagaalka lagula jiraa hadii ay nafis helaanna sidii ay ku badbaadi lahaayeen bay ka shaqeynayaan khawaarijtu marka waxay ka shaqeynayaan sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen buuraha calmiskan mararka qaarkoodna waxa shaki gelaya marka aragtid ciidamadii iyo dadkii oo diyaar u ah haddana ciidamadii aan la dagaal gelinayn Cabdi Qaybdi waa dhawaaqaya wuxuu leeyahay farti aan ku doortay Xasan Sheekh Maxamuud saliga nabiga suubanaheena sallallahu alayhi wa sallam ha hilmaamnina waqsala hadii idin tahay soo tukada waa 31 bishii shanaad 2025 barnaamijka waxaan ku bilaabayaa saaka dagaalkii aynu mar horena ka sheekaynay waxa uu si toos ah dagaalkaasi uga dhacay godkii miiraale ceelkii waa la galay waa la qabsaday waana loogu tagay ceelkii waa laga qabsaday nimankii waxa ay ku hareen dhowr meelood bay ku hareen meesha ay uxantoodii dhigteen oo aysan dhinacna uga socon oo ilaa inta lagu tago loogu gumaado mooyaane sin aysan uga baxayn waa wangable haddaan uxantooda laga soo saarin nimankaasi sina kuma joogsan doonaan waxa muuqata bishii labaad ciidamada Puntland bishii koowaad iyo bishii labaad meelihii ay mareen meelo kamid ah baa hadda waxa lagu sheegay maanta inay joogaan oo ciidamo lug iyo diyaarad iyo ay galeen waxa loogu tagay alaaba ay dhigteenba taangiye ay biyo ku dhaansadaan iyo waxbaaba u yaalaba meesha waxa loogu tagay ugxan ay dhigteen oo cusub dawladda Puntland waxa looga baahan yahay inaysan nimanka ka harin mar walba oo laga hakado 3 maalmood hadii jaanis la siiyo ama 10 maalmood waxa imaanaysa in ay iyaguna ku talagalaan sidii ciidamadani ka awood badan kana xoog weyn kana xeelad badan sidii ay marka ku noolaan lahaayeen qofka bini aadanka ahi noloshiisa dhibaato kasto u maraa sidii ay ku noolaan lahaayeen way hadda waxay raadinayaan awoodii ay lahaayeen iyo wixii ay lahaayeen iyo baadii ay guri jireen wixii waa la isla soo dhaafay hadda noloshoodii baa qiil ku jirta sidii ku noolaan lahaayeenna geed dheer iyo geed gaaban bay u korayaan marka maadaama meeshu buuraley tahay maadaama meel aan la mari karin tahay waxa la rabaa dawladda Puntland dagaalka inay ku darto wado dagaalka haddaan wado lagu darin oo aan wado la raacin wax hagaagaya ma jiraan ciidamo dhan oo hal guuto in ay waardiyeyso cagafyo iyo wado dhisme iyo shidaaladooda iyo saadkooda halka wadooyin toos u raaca oo il walba raaca oo tog walba raaca oo ilaa iyo baalada ka soo dhaca ilaa iyo boosaaso marna dhinaca biyo kulula boosaaso lagaga soo dhaco marna dhinaca baalada lagaga dhaco haddaan wadooyinka la helin
ودooyinkaana aysan ku darin dowladda Puntland waxa ma hagaagayaan horumar kale iyo meel kale iyo magaalo wax laga sameeyay waxaas wax ma anfacayaan nimankaas oo la soo afjarin sababtoo ah magaalada Boosaaso iyo Qardho Garowe Baran Gaalkacyo meeshii la burtin ma qurux badnaan doonaan qurux ma noqon doonaan quruxdooda iyo nabadoodu waxay ku jirtaa in meesha la safeeyo buuraha in la safeeyo haatan haddii maalinkii dagaalku siduu ku bilowday ku socon lahaa waxaan hubaa in ay daaqada ka bixi lahaayeen khawaarijtu halkan waxaan idiin soo gudbinayaa waa afhayeenkii ciidamada oo hadlaya adeego asagoo dhawahay waxay wuxuu dhaceen ciidamada la dagaalanka argagixisada ilaa taasay markii waagu beriyey ayay goobihii cadowga ku sugnaa ku waaberisteen iyagoo ka weeraray cirka iyo dhulkaba arrintaasuna waxa weeye sidii loogu talagalay bay operationkaas u dhacay waa gartay meesha marka operationku aa sheegtay inuu ka dhacay waa xagee waa Miraale weeye Miraale eelka Miraale iyo agagaarkaas oo dhan iyo saldhigyadii nimanku fadhiyeen weeye marka hadda meesha ciidanku la wareegeen goob noocee bay ahayd goobihii ay ku sugnaayeen saldhigyada u ahaa iyo eelkii Miraale iyo waxaas oo dhan weeye waa dal la qabsaday iyo ceelkii oo laga qabsaday oo ay naftu kaga jidhay oo ay ka cabi jireen iyo saldhigyadoodii ay muxuu ahaayeen taakuladu oo layd iyo wixii oo dhan haddii laga qabsaday muhiimad weyn bay leedahay marka sidaasay u dhacday operationkaas saas u dhacay horta anaga xagga kan muxuu ahaay ciidamada ilaa lagu marnaba khasaara asagoo ma soo madho iman dalkooda ku dirinayo muxuu ahaayey dhulul argagixisaa oo daa'if ka soo duulay weeye marka iyagu markasta waa mujaahidiin weeye iyagu khasaaradooda wax khasaare la yidhaahdaa la kulmi maayaan laakiin cadowga khasaare badan baa loo geystay laakiin tiro ciriyo dhulba waa laga qabsaday lagala dagaalamay nimanka si fiican baana hawshaas u dhacday marka saldhigyada marka la qabsaday maxaa loogu tegey wixii lagu tegay taakuladii kole muxuu ahaayey meesha ku fadhiyeen waa laga qabsaday ceelkii biyaha oo ay ka cabi jireen waa laga qabsaday marka wax badan baa loogu tegay haba ugu badnaadee muxuu ahaayey taakuladii muxuu ahaayey haba ugu badnaatee hadda marka xaggee ku sugan yihiin kooxdii ciidamadu la dagaalamayeen وهذا وحنا لا يما وحنا لو استعرض يا بيلاتاي ولا ندبغلايا لوغا هاري ما يعرف عرف لوغا هاري ما يبدا هدي كلام ولا لا غلايا عبد قيبدو دعينا مين اركي جيرين وانا يابسه يعني فاتحه aan u marno inuu quraan caaw faatixada aan qabato oo dadka tartiib uga tago asagoo meel baa inta fariistaa ayaan way gacanta kor u taag waxaan ilaahu rabbi uga cafi ilaahu uga cafi gacantii aan ku doortay yani anigii baa shakiyay waxa arkay dambiile weyn inaan ahay wax xun oo meeshan intii yani u baahnayd in laga yiraahdo waxa lagu soo saaray war saxaafadeedka lagu soo saaray intaas maaragtay waxay tahay inta nagu filan laakiin wali ma maqal hadduu diido waxaan islaamka iyo dadka muslimka ay Soomaali ay soo jeedo maxaa la yeelay wali waxa weeye waxaan oranayaa war dadka Soomaaliyeed ninkii wax walba lagu soo akhri batuura soo sheegtay meeshuu wax marinayo marka anigu waxaan leeyahay qolo walba looga dacwoodo bal wax kale oran maaye aan faatixada u marno ninkaas waa dhume waxa weeye
إلهي فاتحة أمرنا إلهي إنه أمدي وح أي ربطه يوحى في عن إن أنتو إنه ماركتي يعني فاتحة أمرنا إنه قرآن عاو فاتحة أنا قبته أو ضدك ترتيبه وقته أسوأ اللي بعتك لا فاتحة بالفاتحة فاتحة الله عبد قيبدو الدعاء مين أركي تشيرين وأنا جاي أبصره وأنا جاي أبصره شرع عندك الدور الني ما أنت فريستها أيانو قعدت كرت وعاري إله ربي وقعد إله قعدتي أنا كنت دورتي يعني أنا جيب الشكية وحاركي دمبيله وين أنا هاي مركب ما هو جاي أنا جا ما ده وجهك السوق النمر صدق مركا مثلا يالي مروين وحبط أنا هده وحلا يصير له ولا يري لا مرة ما يلا عيتمه أنه فاتح عليه وكذي أو علوم كان قدامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.